xidhan masaajidda iyo meelaha Allah ka cabsiga ka helayso haddaad gaadhi kaxayso intaad shidaal ka buuxiso waad tidhahda weligii buu iska soconaya ka war meel dhexe markaad marayso unbuu surwacaadi doona soo maaha ayuunbaa wax waliba ka dhammaan doona laakiin wuxuu u baahan yahay markaad aragta inuu dhammaanayaba inaad shidaalle ku weecsato maxay kaga shubatid aad zaadka qaadatid masaajidda iyo dhulka iimaanka lagu hayo iyo muxaadaraadka iyo meeshani waa meel uu qofku zaadka sii qaato markaad aragto weelkaagu inuu sanqarhayaba in xagga beleda lagu sii hayaba kaalay masaajidda iyo cibaadada dhulka lagu haya khayrka zaad cusub baad qaadanaysa muddo maxaa laynoo yidhi toddobaad kasta salaad jimce khudbad soo dhegayso waa qofku inuu zaad helo waa inaad hesho sahaydii aad toddobaadka jiri lahayd ee kusii joogi lahayd waa inaad hesho meesha tanaad joogtaan markaa waa meel khatara ku xidhan masaajidda iyo meelaha Allah ka cabsiga ka helayso haddaad gaadhi kaxayso intaad shidaal ka buuxiso waad tidhahda weligii buu iska soconaya ka war meel dhexe markaad marayso unbuu surwacaadi doona soo maaha ayuunbaa wax waliba ka dhammaan doona laakiin wuxuu u baahan yahay markaad aragta inuu dhammaanayaba inaad shidaalle ku weecsato maxay kaga shubatid aad zaadka qaadatid masaajidda iyo dhulka iimaanka lagu hayo iyo muxaadaraadka iyo meeshani waa meel uu qofku zaadka sii qaato markaad aragto weelkaagu inuu sanqarhayaba in xagga beleda lagu sii hayaba kaalay masaajidda iyo cibaadada dhulka lagu haya khayrka zaad cusub baad qaadanaysa muddo maxaa laynoo yidhi toddobaad kasta salaad jimce khudbad soo dhegayso waa qofku inuu zaad helo waa inaad hesho sahaydii aad toddobaadka jiri lahayd ee kusii joogi lahayd waa inaad hesho meesha